waxaan maanta ka hadlayaa anoo magaalada berbera jooga oo maalin isniina tahay bisha November-na ay tahay 15 waxaan ka hadlayaa qadiyadda berbera iyo qadiyadda madaxtooyada Habarawal ee la maagay. waxaan horeysiinayaa qadiyadda suldaanka awal ama Zubeeriga ah ee ninkii dalka haystay ku tacadiyay ee uu mooday inay yaro oo uu dhalay aanu ka dhigin wuxuu ixtiraam leeyahay wuxuu mudan yahay isagana uu yahay suldaankiisii aanu waxba xeerinin ninka Muuse ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu dhex fadhiistay qadiyadda suldaanka aad iyo aadna waan uga xunnahay haddaanu Zubeeriga nahay. Zubeeriyadu raalli kama aha qurbo iyo gudaha Soomaaliland raalli kama aha in la taataabto madaxtooyada Zubeer Awal. ninkii taabta waxa weeye waa nin dambiile ah oo ku galgashay boqortooyadii soo jirtay intaasoo boqoloo sannadood yaad dhex fadhiisatay oo aad ka hadashay oo markaad in yar haysay xukunka qabsatay na waad ku qaadqaaday. waxa weeye xasan wuu iska kaa celin kari waaye laakiin annagaa kaa celinayna adiga. waxa weeye nin wax garowsanaya haddaad tahay xaal bixi waxa weeye reeraha kale nintaa taabanaya madaxtooyadooda ma jiro. adigii madaxda ahaa ee adigan uu ku suldaanka ahaabaa ku galgalanaya madaxtooyadii Zubeer Awal. waxaasuna waa ceeb waad ceebowday si aadaad u ceebowday. haddii aad dee leedahay baawar baan ahay oo baawarkan waxaa ku gelgilayaa ma shaqaynayso. maskaxdaada u sheeg dadku inuu ka xun yahay. dadkii ku doortay weeye, waa dadkii meesha ku dhigtay, waa dadka wax kaa eegayey. waxaad noqotay muusow nin dadkii ku doortay ku galgashay oo lugta cagta ka saaray.